isbahaysiga military ee NATO ayaa sheegay inaysan jirin qodob ogolaanaya in wadamada xubnaha ka ah laga joojiyo ama laga eriyo isbahaysiga military kadib markii warbixin lagu sheegay in Mareykanku uu raadin karo inuu xubinimada ka joojiyo dalka Spain sabab la xiriira mowqifka dagaalka Iran. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xigatay sarkaal Mareykan ah oo sheegay in email gudaha ah oo ka soo baxay Pentagon-ka Mareykanka uu soo jeediyay tallaabooyin uu Mareykanku ku ciqaabayo xulafadu aaminsan yahay inay ku fashilmeen inay taageereen ololihiisa dagaalka Iran. Emailkaas ayaa sidoo kale soo jeediyay in dib u eegis lagu sameeyo mowqifka Mareykanka ee ku aadan sheegashada UK ee jasiiradaha Falklands ee koonfurta Atlantic kuwaas ay sidoo kale sheegato Argentina. Sarkaal ka tirsan NATO ayaa u sheegay laanta BBC in heshiiskii lagu aasaasay isbahaysiga uusan dhigin wax qodob ah oo loogu talagalay joojinta xubinimada NATO ama ka saarid. Wasaaraha dalka Spain ayaa isna gaashaanka ku dhuftay warbixintaas isagoo ku tilmaamay midaan waxba ka jirin. Xogayaha warfaafinta ee Pentagon-ka Mareykanka Kingsley Wilson ayaa u sheegay BBC in kasta oo wax kasta uu Mareykanku sameeyay xulafadiisa NATO ay nala joogin xilligii aan u baahnayn. Waxay intaas raacisay waaxda dagaalka waxay hubin doontaa in madaxweynuhu haysto dooq la isku haleyn karo si loo xaqiijiyo in xulafadeenu aysan sii ahaan shabeel warqada balse ay halkaas ka qaataan doorkooda. Ma bixin wax faalla dheeraad oo ku saabsan wadatashyada gudaha ee arrintaas ku saabsan, waxaana sidaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters sarkaal Mareykan ah. Si loogu argudo wax loo arko iskaashi la'aanta, emailka ayaa soo jeediyay in dib u eegis lagu sameeyo taageerada diblomaasiyadeed ee Mareykanku siiyo midowga Yurub. Hantida guumaysi ee Yurub ay muddada dheer haysatay jasiiradda Falkland sida uu Reuters ka soo xigtay sarkaal Mareykan ah. Maalintii Jimcaha ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Giorgia Meloni ayaa ku boorisay xulafada NATO inay midoobaan kadib qoraal ka soo baxay Pentagon-ka iyadoo sheegtay in isbahaysigu yahay ilo xoog weyn lagu dhisay.